وسلامتي عندما ومركز الوالدين مع العلم أنا ذو عزمتان مدشان طبعا ما أنت وحن حلي عن قياسي هنا هذه كلبت صدح لي كلب نمو يا ونحوي شو قارن إن قبضة أمني كجران جودها ربوتك إيو أرمون لحريرة أرمان دورشويك إيو ينها سوكر طبعا حلي يسول كلام كجري وان بحي وحن قاري جودها جرانك وحن تيجي تندى في جوني والله أستي إن دورش هذا لبضع أقل كان عضو بريد دمبه مالمها أن يكوس شغالين شغالها قولياشة iyo gudiyada ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka inta kolkaan gaar meesha waxaan la kulmay arrimo aan yara haboonayn oo ciidamo uu geeyay taliyaha ciidanka booliska Janaal Xijaar oo u dhaqmay yani si aan sax ahayn oo aad moodo ciidamo uu ka shaqeynaya ama ba ah yani moodid ma ahan ciidamo loo geeyay arrimo siyaasadeed meesha waxaan saraakiisha meesha joogto waxaan ku wariyaa idin yeeray marka yaadinkan halkan waxay ugu dhexan jireen Xijaar waxaan ku eray meeshan shaqadiina ma ahan ordaya iska taga oo howlihiina qabsada marka waxay dhahaan wasiir waa runta waa saxan tahay balse waxaan keen halkan oo aan ku nimid amarkiisa taliyaha ciidanka sigan la xiriirayna inaad amarka nafartan oo sheegayna waana kugu soo celcelinayna biswaayahay kadib ugu soo celcelina waxay u dhahaan wasiir waxaan u yeernay taliyay uu imaan doona adiga gudoomiyada imaan doona bas waa sugnay ونو يمد تلي أساسا هذا كده وحياة قاركود وحجرة أنا نحب جعلين إن الميديا لو ذاقو وكوها بوين حفيسي إيو نظام كدولي ودحيس الواحد له مركوح بدنا نسداني لكن قدام بينتي هذا الكيس وحنا لقى موقتي دينين أون أسوق سياسات كشغالين دكتور جرين يوضح يسان لما يري سيدان والي يليه مركز دمبو دامرانسيو وحنقولي ما هو أمره أرين كافولي وكيرا لقى أمرك إنه فوليو وحكريت ونلها بوناتي وحي نقطي أنتي أي كدعي لهذا حوجا وحن حبوني إنه عسكرتي إيو بدون كادات كل بلانسنا حل بان دي وحي حوجا بقوة خدع لها وحي إنه لما وقتي نكون ندان نوايا ند مدرسة شقينا نوايا هاي وحوك شقينا إنه يخلدين نفهمي كرؤية هاي بس إنه جم وقتي ويرب برا خلط كأنه كشقيا waxay noo muuqatay inaynan inaguna hadda khaladkiyo aynan ku indhaadeegin yani in waxyaabaha uu ku talagalay inay dhacaan ee goobta ka dhacaan go'aan waxaan ku gaarnayaa maadaama uu albaabadii xirtay uu leeyahay gudoomiye cid imaan karta lama arko cid soo gali karta lama arko uu ku yara madax adeegay ibando aynan ahayn asiga mas'uuliyadiisa meesha amaankeeda iyo shaqada ka socota oo wax shaqa ku leeyahay laakiin ciidan uu keenay inay ka shaqeeyaan siyaasadda oo meesha keensaday go'aan waxaan ku gaarnay gudoomiyuhuna oo runtii nin odayo wax badan xiriir u ahaay lama ficiltamin anaguna hadda dabcan kuma aan fikirin kan wasiirkiisa haday warkaaga mididi kare xogaa ku si yar adkay go'aan gaarnay xilli galabgaabana way ahayd furku soo dhawaa waxaan go'aan ku gaarnay inaan meel kale goob kale tagno howlihii gudoomiyuhu iyo waxa uu gudoomiyuhu ku sii dhamaystirto بس أنا جو حن ماشي وجوه ما دام أنا أركح حاجات تنشن وسكت يرجع هنا بال عاوية جدون كما دام هو يغفق هذا مسؤول كرية ودورن هو كان كذلك دولة عصب وهي أسية هنا بال سي عاوية وهذا نقول له هذا ما أمني جارهان عن كلا كعنسية قابتي كلا كل كان جارني وحنو تجني سيديو كلا يعني البابدي على الحري إذا ما دوات كادتك قدوميها الربي نلقى المواقعات كاتين سو جالان سيديو كلا xogaa waxay dareen waxay galay in ay jiraan wax kale oo ka yara baxsan wixii laga shaqeynaya ama wixii la isku ogaa dhowr qof oo mas'uuliyiin aan la xiriiray waxaan qabaa dareen ama tension inuu jiro bal waxaan arrintaas jirta oo aan aad u update gareeyay oo ra'iisul wasaaraha dalku ka mid yahay kadib waxaan sii qaadanaa haddana inaan goobti ونو أرجعنا حل جالسين يعني هذا الحين جوب وبسيط سكنان كرو قدوميها كمرجال كهذا كلها شعب إنان كوري جنوبي هول يلا وكسيد ما استرتو جوب كلو كيرا أمام في عن وأنفوذي يخشخشاد يتوانا كجرة وكسي قدومني جوب تكلا كل كان تجني قدوميه
wuxuu ku lahaa shir uu meel ku lahaa anigu shirka maana qayb galin imana quseyn keliyata uun waxaan ka gacan siinaya ammaanka waxaan arkay kasoo horjeedka meesha uu guddoonku kula shirayay dadka mas-uuliyiinta ah meel kasoo yaro horjeedaan fadhiyey aniga mas-uuliyiin kale waxaan arkay meeshii guddoonka albaabkiisa hortiisa xoogaa yaro taagtaag ka jiro waa soo istaagay meeshaan imid waxaan bargartay labada dhinacba istaagtaagay qole waxay ahaayeen guddoonka dadka la socda close protectionka dharcadda ah oo guddoonka hoolka uu ku jiro hortiisa taagnaa iyo qolo kaloo ku doodayay ama oranay ma rabay inay gudaha u galaan hoolka uu ku jiro guddoomiyaha dabcan qolyahan dharcadda ah ee guddoomiyaha amnigiisa oo xil saaranna waxay ku dhaheen meeshaan guddoomiyaha ku jira ma ogolin qof aan ahayn close protectionkiisa hubaysan inay gudaha u galaan waxaan la hadlay qolyihii hay'adda nabadsugyada ka socda markay aan la hadlay xoogaa waa isla dejiyeen waxay dhaheen hey wasiir waa annagaa meeshaan joognay waxaan la soconnay taliyihii iyo wax dhibahoo dheeriya ma jirin bis waxaan ka wariyey maadaama raggaani guddoomiyaha amnigiisa mas-uulka yihiin iska yara suga taligoo soo bixi doonaa ayagoo yaro degan oo aan hadda wax problema jirin ayaa waxaa dibadda usoo baxay taliyihii watay ciidanka hay-adda oo aad moodo xoogaa in si qasab ah dibadda loogu soo saaray oo uun intay isfahmi waayeen dadkii xildhibaanadii mas-uuliyiintii kale gudaha ku jiray ayaa xoogaa dibadda loo soo saaray albaabka markuu soo marayo uu dalbaday inay gudaha soo galaan gudihii markay u dhaqaaqeen qolihii kala hor istaagay xoogaa waxaa bilaabatay marka gacanka hadal iyo hadalku inuu xoogaa kor yara kacay ma celi karti waa celi kartaa bustooda la isula baxo waan taagnaa labada askari ee ugu horreysay ee bustoolada isula baxay labada gacmood ee bustoolada ku baxeen mooye labada gacmood oo kalan ka hayay xilligaas anoo dhahay waraa joojiya dibadii bustoolada xaree oo gacmaha ka dharbaaxaya dabcan waxa dhacda marka laba kaliya ma ahayna markay u yaraadaan shan ay ahaayeen intii kalena bustooladii la baxda sidii aan kaga dhex baxay maadaama dee aan xilli saas oo kale marxaladdu markay gaarto xoogaa iska yara adag tahay amni ahaan wiilalaan ila socdaa gadaal ii jiiday sidii aan kaga baxa dhexdooda isla markii xabaddaa bilaabataba intaanan 4 tilaabood uma jirin xabadda ugu horreysa kolkay dhacaysay waxa ay dhex martay shaqaaqaduna waxay ahaayeen wiilashii la socday guddoomiyaha oo close protectionkiisa ahaa oo amnigiisa sida gaarka mas-uulka uga ahaa iyo nimanka dhalinyarada runtii waxay kol haddii meeshuna waxay aheeday meel xaruntii guddiga doorashooyinka ay ku shaqaynayeen ahna runtii dee dhinac sina u ah goob ganacsi iyo mas-uuliyiin fara badan iyo hay-ado fara badan ay degan yihiin oo dee mas-uul saro hadda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ahna musharax ku taagan xilka madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo degan yahay ilaalo iyana u joogaan ilaalo kaloo amisooma joogta ilaalo kaloo hotel ku leeyahay joogta adiga dee kol haddii xabada bilaabatana waa sikara kartaan environmentiga iyo jawgu sida uu noqon karo marka waxa dhacay sidaasay ahayd oo ugu dambeyntii hadda ciidina ma dhiman dhaawac aan dhici karo oo rasaas geysatane ma dhicin